banaanbaxana oo ay ka qayb galeen dhammaanba qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxa uu ka dhacay meelo kala duwan oo ka mid ah magaalada Muqdisho iyadoo banaanbaxayaashuna ay wateen boorar ay ku qoran yihiin erayo ka turjumayay doonista dadka Soomaaliyeed ee ku aadan in la joojiyo gabi ahaanba faragelinta caadada noqotay ee lagu hayo had iyo goor sida ay banaanbaxayaashu qabeen arrimaha dalkan Soomaaliya banaanbaxayaashan oo ay ka muuqatay cara xoogan ayaa sidoo kale waxay gubeen taayaro iyagoo joojiyayna isu socodkii gawaarida dadka rayidka ay isticmaalayeen ee u kala gooshayay wadooyinka magaalada Muqdisho iyagoo xirayna wadooyinka soo gala xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya dadka banaanbaxayay oo ay sortaad ku sameeyay gawaarida isticmaalayay wadooyinka soo gala xarunta madaxtooyada iyagoo waliba wata dhagxaan iyo ulo ayaa waxay ku guuleysteen inay saacado door hakiyaan gaadiidkii ku kala soconayay wadooyinka ka kala yimaada ceelgaab sayidka iyo waliba wadada xawataako ee soo martay SYL waxay banaanbaxayaashu taageerayeen oo ay waliba u sacabtumayeen kolka ay soo maraan wadooyinkaasi gaadiidka ciidamada qalabka sida gaar ahaan kuwa xoogga dalka iyo booliiska oo aad moodayay laftooda inay banaanbaxayaashu qayb ka ahaayeen maadaama ay u muujinayeen ciidamadu taageero dadweynihii banaanbaxayay qaar ka mid ah dadkii calaysnaa ee maanta banaanbaxayay shucuurtoodana muujinayay oo ay ku jiraan kuwa curyamo ah oo dul saarnaa baaskiilo ayaanu la kulanay kuwaas oo aanu weydiinay bal waxa ay doonayaan iyo waxa ay diidan yihiin تبدل الوصول لعك الرصاصي صومالي لك رجعي أو أحمد بحي قرك اللي بدهم يلا لهم أيها ديننا ما أقول حتى أنا تبغينا صومالي حتى أنا عيشنا صومالي حتى أنا وحنا نبض وحنا لما وحنا نبض صومالي وحنا صومالي نبض كذا لحياة تاجر سنة اللهم تاجر سنة نفسي مالك يا كوي أنا كنا واحد حتى أنا واحد صوبة ولا بحنا بدنا كنا واحد حتى أنا واحد ديار واحد إن صوماليا نبتش إنت وين صوماليا نبتش العرور تأيه يويك واحد ما يسلك له نبت واحد صور جالس الشديد يحرق كذا أوت من الدولين من الدولين gudoomiyaha majmaca culmadiinka Soomaaliyeed Sheekh Ahmed Cabdi Daciso oo kamid ah dadkii banaanbaxan ka hadlay ayaa isagu waxa uu qabaa inay Soomaaliya ku dhacday nasiib darro mar haddii aan la garoosanayn lana ogolayn rabitaanka shacabka Soomaaliyeed